hooyo maxay tahay luqadda Soomaaliga dadku waa ku hadlaa laakiin may yaqaaniin dhuuxa sifaha magaca loo bixiyo hooyo yo'du waa adaa leh sida hobyo gaalkacyo adaa leh mugta okay xagga kale hadii laga dayo la yiraahdo habar hadday gabadhu hal gaar dhasho waa habar macnaheedu waa habbar tii bartay binu aadanka habka ay u dhaqmayaan faraxalo afdhaqo adayo aabadhe hooyodhe bahal xuux waa dab waa cir waa dhul bayna bartay horta waxayna bartay lama tirin karo laakiin markii la eego xagga dhaqanka anigu waxaan idhaahdaa siyaasiga Soomaaliyeed hadduu fahmi lahaa macnaha ay xambaarsan tahay heesta waxaraha ama heesta ariga waaweyn ama heesta caanaha lagu lulo ama heesta kabadda ama heesta badarka lagu tumo hees hawleed oo isu dhinac yaal hogaamiye xun iyo hogaamiye fiican anigu waxaan qabaa dhibo ma timaadeen ee hawshu dhammaan lahayd haddii siyaasiyiintu intaa fahmi lahaa hay maxaa ka maraga kaliil baa roob daay meel durugsan buu ka daay reerku caawu fiid kacay bulbul salaadka duhur mayl aqal lagama saaro markii hargonto ku ururo wiirada maqasho ay socon weydo maqasho waa dadka iyo naylaha iyo waxaraha carruurta yararka waxaraha iyo naylaha waa dhaqaaq weyda geedaha isu qaybiyeen hooyadu markaasay ugu dhufan jireen ودالاي هنالو دغوي وأوناي ناروريوي جوناي جلنو لسو ilmi waxa lagu sheegay inaad daashay oo la degayo oo aad gaajotay oo geel lagu lisayo hooyo xagee degaya bari geediyay bana barahay biya qaadasooy waxaro wax la sheeg qasaxdaatay la sheeg la sheeg qaranqubatay la sheeg la sheeg xamur xayana la sheeg la sheeg wax la sheegyo wax la sheelimayn how marka siyaasiga Soomaaliyeed hadduu intuu fahmo bulshada asbuuciiba mar ugu soo cesho dagaal baa la gelayaa dagaalku kaaniqiin maaha qori maaha waa dagaal hawleed waa dagaal horumar waa dagaal danguud waxaynu qorshaysanay 5 sano inaynu ka shaqeyno dhulkeena beeraha wadooyinka jidadka hadii la ku garoomada dekadaha 500 u qaybiyo waxa ilaahay xooggiisa ka dhooban haye idinku kunkiinaanu waxaad ka shaqeynaysaan beerahan waxa beeraysaan timiriya sarreen anigu waxaan bixinayaa haddaan xukuumadda ahay cunada cuni lahaydeen 5 sano bariiska cuni lahaydeen anaa bixinaa hadhow 5 sano markay dhamaato beeru isku dhalaan oo sarreenku isku dhalo lacagta ka soo baxda 20% ilaahay ka goosana inta kale idinka leh hay maxaa maran lahayd waxtar aad iyo aad weyn labada wabi iyo wabiga nugaal iyo wabiga dharoor maro qarsoon iyo wabiga mudug maro qarsoon 5 wabi lagu degi lahaa والله ده وبيه وساجده وانا وعندي كوارك وان دلاعين ادو ku jira gobolka karaad adu ku ogeey waa lagu sheega laakiin afkiisa ka qarsoon anigu afkiisa waa soo helay tan dagaal galay marka waxaas oo nimco ah iyo baddi hadii loo diro badda gala maanta intii naas warshadii loo keeno iyo diyaaradii kaargooga isagoo maanta la soo baxay habeenada Mareykan looga cuni lahaa maxaa u malaynaysi caanaha geela oo dhayca oo Mareykan saa la idinku keeno hay wax ka qalsan badiri lahaa dadku adeer marka waxaynu u baahnay dhalinyarada iyo dalka in loo warramo waxa la yiri war leh yaaba kale leh hooyo maxay tiri moogtahay maqalay warlaay ma lagu warramay waxa weerar dhacay waxa wiil la dilay waxa waran la qalay yaa ii warramay ma walaalkayba wabiga sariyo waa heenka mogta
اج مقاشي ما قدش واحد عندنا شان الله ورحمه حكمها يا لاب حكمها يها مولالكii baa idin xageekii moogtaa fiiri waxaan soo qaadanaynaa heer sawleedeenan ku jiraaye laba hooyo oo gubar waaqo oo arigeedu mid walba dhowr boqol yahay mid walba 200 oo riyaayo عند التلحه ناس بوعه دندمنا كلا حتى ايو دشay واحد wax ka tagay barwaaqo hor fadhi laga yahay maxariga laga yaqa day فيني أنا جيل برقنا جيل هاي ورياك في عاد هي دي هي قبر وقع داي هويو ما حماه هويدي لما رير ku xigday oo aabaheed bixiyay oo hooyada u duceysay meel roon mar laba reer kugu rays markay reer baa loo oran jiray guri khayr ma gasho iyana waa gaari laba reer waa reerka ka dhaltay reerka iyo reerka u dhaxdaa laba reer kugu rays ilaahay idanka hooyo laba reer من ممنوع جل على كودك بالورنجري مو واساس كل لبدا reer ku raysay aroor hore kacab aroor hore oo markuu istaagay hanti ay cusay oo catireysay biyo roga u karkaraysay waa ku carrubtay liish litay la soo baxday garoorkeeda waxa ka yeera boogta leeyna waa ku dadday waa lingaxday oo higaagtay oo fur markii uu dhigtay oo furka gacanta saartay moogta هوي با يبشنو وبيرا عبيد يلين باوين ينصب قلي بدين ينبهر الله فيلين ينبشو إنا حماني ينصبح لي عراني أدنى لقو بلاوين بايي بلوي إيبح فرفرو فرويني إيبح حريو فندال بوح بكتر أنا سوق عن كم وبرع وعن شيء المصومالي اللي أنا بجيب مركز وسوق في عكين وسوق في عكين إج هو يراسو محي متشاء حكومة للدورتي وكبغي سئنا دعوه وكبغي سئنا يسون قويدو وكبغي سلقالو إنه هوس الله يسمع عدل ها مقعية لقالي وحولي له أو كدالي أو دكامي أو ضلبالي هاي قدلنا يقصد إلا يراهي كبغيسا ما قلت هذه سفيا عن هو يعني عندك بقل ما شاء الله هو يوينك الصوماليات ما أنت إن هو يضو وبوس والبريكة هذه عن كل نقضي ورت الله ما إسرائيلية هي تكلهاتين هو يمتش الدولة عندك بقل إذا ندورا الناس أروريا لوريك ميليترية سيدا كوبا عربنا هذا ورمي كل دورتا إلا واحد ثاني دورتا خارقوبة هاي لقيسو وأساس وحوا سياسة ها قرح دي هالكا جوكت حل ساعة بيتوصل الرورتي أول الدوف للرباحة كلا داش إيسو سيدا دبك قيد عبا استاقي وبالشمي شمية طمان كذا رئيس وينورك وقبر واقو دويل مالي ساقي عبالة وقي عاسم عوية ساليين واتي ولا سليقة هذا كعب الرورتي وعن وجهك الله دقل الله سيمين الله عظيم بيتين إيش وقفت هانتا هان بحالك هلقا سوقفت كعنت المرس وحكوف في سبا قرنكنا بحالي الدقسيقي وحي عرعسكي وحي كل دقي فلوس كعنت سيسرت إيش وقفت ليش مسئليش رياي كجدا وصل سبحان الله قلت تون لقبت لما لي كي حكرونا ساعة سوق هذا وهو كان قرار كذا waxa ka yeedha baq دو ما تمالي ما لو وفر يفار هي ليدي ما كنت سو عن اسمجلي واحد يقول لي ننجحدو هي ولا ننجحدي وكل فتره oo higaag damacmay kaba ku saddex meelood ba ka jaban yahay dhinac loo dhigo maray habba garba u diiday ala iyo hal waxbay ku malaqsiisayo iyadoo aan furayn suulkana saarin bay soo dhifatay saacani ba ku daatay sayfar bay la gashay meel ku kala goysay bal maxay u dhintay meel ahaan yaa gacantayda kuma tolaanin gacalkayna ima siinin waa gorof la xooleeyey guri jabad ka soo qaatay laba qaar u soo kala go laba qaalin kula buubtay laba qaar lagu kala jar geljira ku qooraanshay geedheer lagaa soo lul ina goray gelgelin kula gel garangaran lagaa goosibata marka khayr laga sugaayay meesha habaar bay ku dartay habaar haye warta waxaasu waa dhaqan waana siyaasad وانا سياسة هجامينية بلشو مقتل فيري إذا الله وضع عربة الله وضع مقتل political science ها قبر با وضع مقتل وعلى ذاي دبي دالان دو
oo dhagdhagu soco axee oo dhabaha qaad axee oo dadka ha dhibin iduu markaas shululu mid kala wada moogta darantooyida idaano laba nooga reeb cudurow waa cudur daratelayo idaha laaya noo imow oo idaha lay oo laba keliya uga reeb si aan dhibta uga reebso wey waayahay xagga raggana marka xagga ragga war raggiina waa kan ratibuu rarayaa waa soo dhaanshay ceelkii buu yimi haamihiibuu buuxshay waa rarayaa dheegsiman labadaada dheegsiman midna dhaafi maaye kan sokaandho waan biday inaan kugu dhifta amoodina waa kugula soo dhacay aan lay dhalay habeenkii adna lagu dhaqaaleeya adhibba layska meel dhigay caloolgood caynsane caloolgood sida caynkuu ku gubayaa cagtu ii daboosha maraaruuglow marmariyo maygaa gabaaraad buu micida u lisaaya saarar waaweyn keenna saarar waaweyn saymuhu ballayeen sabarrada caleen ku leh baad sariigan doontaa markaasuu ilaa waa loo warramay kaan loo warramay warka xun loo sheegana waa kan dhinaciisa kalu ku raraya kama dhalan gacalkayna ima siin wiil gabar garaar gooyaa guduhdow lagaa helay gararac leedahay maxu gabal dhibaysaa maanigaa ku gowracay goggaagaan wax saaraya jow idama la waraaba ku cun ilaah idankii haye waa labada hogaamiye hogaamiye xumaa iyo hogaamiye fiicnaa bulshadu marka umaba baahna inay ku mashquulso ninkaanu ma fiican yahay mise waa xun yahay may dhaqankeeda dib ugu noqoto ilaa hogaamin weligeeda lahay moogtahay gabar baa badal sumaysa musango walaale iilatun waxay tiri macadee ha caddaado canageel ha wakaado culimaa cuni doonta iyo coof la barbaare iyo reer curadkiisa iyo caalim wadaadi macadee ha caddaado canageel ha wakaado ya tii kale maxay tiri may tan mas-uuliyad baa saaran ka soo qaad wasiir maaliyadeed ya waa inuu lacag ururiyo si aan mushaar loo waayin si aan adeegyadii loo waayin si aan horumarkii loo waayin waxbarashadii loo waayin caafimaadkii loo waayin wadooyinkii loo waayin dekadihii loo waayin waa inuu dhaqaale sameeyaa hooyadaas taasay mistaa ma caddee ha caddaado canagel ha wakaado culimaa cuni doonta iyo caalim wadaade iyo coofla barbaare iyo reer curadkiisa mogta adiga tii kale maxay walaale ilatun ila tabantaabi markuu takhoo iga tag amba waa tirane haye wasiir maaliyadeedoo aan cidna ka baqayn ya cashuurtaada ka rabaa askar haye jeebkiisa mutaadi oo dhan dhaqanka hooyaana keentay aabbaa keenay waan la fahmin luqadeena lama fahmin sababtoo ah odayga garow agtiisa deganoo haddaan idhaahdo dhurwaa ka warroonayo waa bahal war dhurwaa bahal maaha ii sheeg may waa bahal war wallaahi maaha bahal maaha waa habaar waa sifo waa dhur waa ya magaciisu waa bahal laakiin bahal buu habaarkan magaciisu ka yahay saddex magac buu leeyahay dhur waa insan waa iyo waraabe waa cabbe dhurwaagu lo'da waa ka beejeclay ciidamo waraabe waa kii cabbayey ee isagu waraabayey haye dhurwaana waa khayrwaa ilaahay taran kuma siiyo ilaahay khayr kuma siiyo magacaaba sifa ah midna waa insan waa oonta xoolaha ya luqadaanu marka geed kastaa macnu ku fadhiyaa 8 sano iyo 3 bilood baan waxaan raadinayay cawsku waa geed dagaloolkuna waa geed iyo maraag iyo canjeelka inta la laga arag waay maxaa wadaajay wali ma soo disin marka geed wuxuu noqday xaje haye luqadda Soomaaligana xaraf kasta oo ga ka bilowda waa xoog karoorka u jirsan isaguna aanu u adag yahay waxaan idin leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed luqadooda ha fahmeen markay luqadooda fahmaan baa waxa u macaananaya ingiriiska iyo carabiga iyo luqad kasta sabab waxay ka dhaxlayaan luqadooda adoo luqadaadi fahmin luqad kale ma fahmin maya luqadaydaaba ku jidha kulli
كل جريج قالوا كل يا بيو وحكوا بيرا سوماليا جريج ما هي مجران يا وكل يا اب وحكوا بيرا سوماليا جريج ما هي مجران جينا وكل مهم ما هو اسمه ده يا إنجليز بقول كل يا استوب ده استوب واستوب تليانا وعيري إسبارو ده وإسبارة وحبا أنا اللغة هذيك واحد يا شعب الصومالي أنت دب وبرتد لغة إنجليز كبار تلياني كبار كبان بقول كيف صدق حد يروح الصومالي ما أنت يا خد بقى يسوع الرياء واحنا بلوغ أنا كم ده سفير كبوتيه وجوجا هذا حول waxay u baahan yihiin hawl badan in laga galo waxay u baahan yihiin dhaqankeena iyo maamulka dawladda in la iswaafajiyo waxay u baahan yihiin ummadan in loo warramo la wacyi geliyo abwaane aad iyo aad baad mahadsan tahay qaybtaas waa qaybta dhaqanka haddana qaybta soo noqdo waxqabadkaada iyo shaqada hadda lagu magacaabay tiyaatarkii baan dhex fadhinaa shaqa ka socota oo dad badan shaqo wada oo runtii dhalinyaro qaybaha inaga hadda shaqada inoo joojiyeen idin wax duubanno iska wax qabso meesha waa ka jirtaa kuraas kun iyo sas gaaraya meesha taalla waa maxay qorshahaaga cusub ee aad rabto in aad afka maadaama qayb ka mid qaybihii ugu muhiimsanaa maanta aad fursad shaqo u heshay waa maxay waxaad ku kordhinaysaa maxaad ku qorshaysan inta aad magacaabo insha Allah way horta qorshe waa qorshe soo kordhina waa wixii ilaahay ku idmo faa'iido waasaas ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo wadada faa'iidada ilaahay waxaan ka baryaynaa suugaantayada iyo halabuurkayga iyo wax soo saarkayga inuu ka dhigo tii ummadda anfacda aamiin Soomaaliya oo dhan ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ina ka duwo wadooyinkii gabyaagu muddo ku shaqeynayo tolaayaa reereeda ee loo bedelo tolaayaa qarana golaha murtida iyo madadaalada dawladdu waa u jeedaa waxay ku soo celisay sidiisii waxa hadda ka dhiman daahiyadii iyo daahiyadu sawirada ay lahaayeen oo kaliya kuraasi way taala korantadii waa la gashay matooradii way yaaleen maqaadi waa la furayaa hadii la ku reeyo waxa laga dhigayaa meeshii ay ahaan jiray oo sideediya waxaan aad ugu mahadcelinayaa ilaahay baa mahad leh alle ka sokow dawladda abaabushay xooga iska wuxuu qabso shirkadaha dhisay intaba waxaan leeyahay Allah barakeeyo kan kaliya maaha waxa halka uga jeedaa oo ku muuqanaya masxafkii qaranka waxa la wadaa madbacadii qaranka waxa la wadaa wasaaradihii dumay oo dhan shaqada waxa la isla sugayaa tiyaatarkan waxa la yeelmayo dib u dhigan mayo waxa la furayaa hadii ilaahay idmo maalin dhow wax badan baa Soomaaliya laga qabtay meeshana waxaan soo celinaynaa hadii ilaahay idmo oo rabbiga noo ogolaado oo dawladdu noo gacan siiso waa gacan nooma yeedhan hadii na gacan siinayne tiyaatarkii kooxdii waa bari iyo fankii qaranka Soomaaliyeed oo la arki jiray insha Allah billahi kariim 3 bilood ugu badnaan 3 bilood waxaan idinka tusayaa maslaxa fankii Soomaaliyeed anuu kulli ka shaqsiyan in aragtida khaldantana waa soore waxaan u aqaanaa maanta inuu si jirin gaar ahaan markay timaado fanaaniinta Soomaaliyeed oo qaabkii asluubta lahaay ama hees loo qaadi jiray miisig loo garaaci jiray ama rag iyo dumarka loo kala yeelay jiray in gabi ahaanba uu akhlaaq burbur baahsan uu ku yimid banaamijsan arinta maxay kaaga qorshaysan mase ku muuqataa adeer waxa iga qorshaysan horta koow waxa uu asala waxa la yiraahdo tixda ama heesa ahaato ama gabay ha ahaato halkan waxaan ka furayaa hadii ilaahay idmo dawladdu ka furaysaa tartankii suugaanta waxa la soo saarayaa hal abuur Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba isugu jira intooda xulka ah baa horta kooxaha loo qaybinaya oo bees noqonay koow waxa la kantaroolayaa ereyga fanaanku ku heesayo 3 meelood baa laga eegayaa diin ahaan dhaqan ahaan murti ahaan muxuu ummadda anfacayaa 1000 sano dambe ereygaanu ma jiri karayaa mise maanta ku egyahay ma ammaan qofba mise waa ammaan qaran ammaan ciideed ammaan calan ammaan gobonnimo wax ilmaha loo dhigo waxaan anugu taladayda dad badan oo sheegay
xataa ilaa madaxweynaha u sheeg inaan wax la faanin ee laga hadlo ummadda iyo horumarkeeda iyo danteeda iyo waxa la yidhaaho waddaniyadda la xoojiyo dawladdu waxa ay qabataa la sheegaa ninkii wax qabtaa waxaanay qabatay ammaan bay u tahay yah waana xaqiiq laakiin hebelow fiicanow khayr qabow noo jir noo noolow weligaa nala joog ma dhici karto qofka wax yeesho maya wax tarmayso marka fankii soomaaliyeed waxaan rabaa fan iska daa meel kale timaha madaxiisa ama ay yihiin kuwii soomaalida sidaydoo kale tuurkaas timanoo weyn ama ay yihiin kuwaagoo kale kuwa jaran oo isleeg oo gabana laakiin halkaan ka xidhiidha iska daa ragga xataa gabdho xiran baan arkay oo ilaahay ugu oo haddana fanaan baa noqonaya dadka bulshada wuxuu sheegaya oo bulshada wuxuu sheegaya bulshada maanta xuma baraysaa ma Jamaican baa tan Soomaali baa ya dhaqankay u taagantahay dhaqankay u taagantahay waxaan abuuraynaa fan u taagan dhaqanka Soomaaliga waxaan abuuraynaa ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ciyaaruhu waa laba qaybood qayb waa Soomaali qaybna waa Afrikaan labadaba laakiin waxaan badinaynaa Soomaalida sida wala shaqada iyo gadoonka iyo dandheerta iyo saylicida iyo dhaantada iyo durbaanka ciyaaraha laakiin kuwan loo tumo rimka ma la yidhaaho waa dhaqan Afrikaan iyaga ruuxda Afrikaan baan waxbaan ka soo qaadanaynaa anshax iyaga anshaxooda laga sigan gaaladu ciyaarta ama dabcan dalalka sheeyuhu ciyaaraan inagu bariga hormeynaa noqon dancing la yiraahdo rag iyo dumarka is dhex galaan aroosyada mararka qaarkood ku arka ama xafladaha dadka qaarkood dhigtaan oo dhaqamada Soomaaliya ku soo kordhay waxyaalaha la yaab kale qurbaha u badnaadeen oo qaar la yiraahdo soo dhawow iyo sii dhawow wax noocaas oo kala ayo ilaa xad la arko xataa siyaabo kale waxyaalo kale oo aysan muhiim ah inaynu hadeerto halkan ku xusno laakiin waxaan isbaxyaa ayadana see loo kadro hadeer anigu hadda horta qorana wax ka sheegi maayo boodboodadeeda waasaas laakiin waxaan ku sheegayaa waxaan samaynayo hadda ma ujeedaa maslaxa waa bari fanaan baa heesaya waasaas halkaas soo fuulay hadda waxaan arkaa fanaanka heesaya dad intay ku yaacaan hareerihiisa dhooban oo saasay waana fool xumo waa for action waxa weeye qofka heesaya hadiyad waa loo dhiibi karaa laakiin adigu maxaa kaa qabanaya ii sheeg sawir qofkii heesayuu gelayaa maxaa tirahaa isnaab iyo Facebook live waxa keenaya marka ku sheegaa qofkaan heesayaan live ku heesay hadduu live ku heesayo waxa dhumayo attentionkiisa baa dhumi lahaa marka waa la isla wada boodboodaya waxaanu soo celinaynaa fan live oo loo tumayo music live oo qofkii aan live-ka ku heesi karin gurihiisa ku heesayo iyo wixiisa oo saarayo laakiin anagu cod gaar loo soo duubay ma yeelayo uma aqoonsanayo fanaan cod duuban wata fanaan uma aqoonsanayo hadda waa ku sheegay anaana xukuma maanta fanaanku waa inuu heesta toos u qaada hadduu safrayo oo keligii meel aadayo waa in muusikadu u tuntaa markii loo tumo uu duubtaa muusigiyo kalaasiga oo laakiin muusig ah oo Maraykan la tagaa ama Amerika la tagaa muusigiisa dhigtaa live u heesaa laakiin cod aan soo duubay baan ku heesaa ayaba badan baa laga soo mareeday waayahay erey bixinta cusub ee loo baahan yahay ama luqadaha kale oo loo baahan yahay mararka qaarkood in wax la tarjumo waxaan malanayaa anigu hadeerto dadka ugu baahida badan baan ka mid ama warbaahinteedu ka mid tahay maalin walba waxaan soo tushinaa warar aad u badan oo luqado kala mararka qaarkood aad noogu adkaata inaanu Soomaali erey ahaan weyno mararka qaarkood waxaan soo ereygan weliga Soomaali ma ku maqasho marka ereyga fasiraadiisa macnihiisa ereyga wad fahamtay laakiin ereyga u dhigmaad ku dili lahayd Soomaaliga badwaaysa marka see loo arintaas oo kale dad badan waa ila mid jaamacadaha kamida waxa kamida ardada waxa kamida arinta baahidan soo eegadeed waxa jira 2013 waxana loo ku yeeray waxa kamid ahaa globalization كلمداس كي صح كو هذا الله هلا marka Soomaaliduna waligeeda lahayd waasaas ya waasaas ayayda waxa ku bartay carreedik waasaas arwaadik marka carreedik baanu uga dhignay computerka oo kale maxaa bixin lahayd xogaydiyo maya computerka waxa loo bixiyay kastile
wuxuu iska dhigdhigayaa qof waa dilayaa laakiin qof ma noqon karo maskaxda qofku waa kii isaga samaysay laakiin maskaxdu soo ekaysiinaya waxa ku reebto ku haya goorta weydiiso ku soo saaraya adoo halka jooga Mareykan wax ka weydiinaysa waa ku sheegaya moogday laakiin qof waxa ku shubay marka kastilay u bixiyaan moogta laytarka kale waxa yiraahdeen dabdaac dab soo daacaysa wasaas marka habba 10 sano hadii la isu yimaado hadda waxaan arkaa wiilal wariyaal oo kale magaalada duleedkeeda aniga xamar duleedkeeda meel yahay aqoon waay ilo duleed waxa la aqal miyi ka dhisano meel u jeeda wasaas xarada muskeeda iyo aqalka muskiisa wixii ka dambeeya baa duleeda wixii ka horeeyana waa fadin ya wixii xaggi ka xigana waa laba dhinac wasaas marka waa fidada magaalada ma loo dhaqo magaalo waxa fidikeedu tahay waay waa wixii magaalada ka baxsan ma fidada ama ku soo jeeda ma magaaladu waxay leedahay dhanka waqooyi dhanka bari dhanka koonfureed dhanka galbeed dhinacyay leedahay laakiin meel ay u jeedo male oo duleed male meelna ma dhacdo magaalo duleedku waa meesha gurigu u jeedo miya macnaheedu ma dabadiisa waa dabadiisa xarada duleedkeeda agteedana maxaa loo dhaqaa markaa meesha agta marka xamar agteeda wax ka dhaceen tusaalaha xamar agteeda waa agteeda taasa marka duleed ma jiro ma jiro duleed ma jiro okay waa sax xamar agteeda oo dhanka bariya marka waa agteeda un baa loo jeedaa agteeda dhanka bariya waxay ku leeyihiin 5 qofood 50 qofood dee 5 qofood luqadda kuma jiro dee 5 baa tiri jamca kala raadinaysa muxuu yahay waxaad ka sifeen waa 5 adiga 5 baa tiri 5 qof يا شنن ما شنن ما بارنسا ما زحز مركا لغدي هذا روح بارتا هيل لغدي انا صدح قف با ويجري سوغان ليدا وريها يو معلنك اساس صدحاس ابا waa tirmin jiray saddexdaad waa jabeen wixii laga dhaxlana hooyo ahay caruurtu markii dugsiga laga xiro waxa 3 bilood la geyn jiray miyiga si ay u soo barato dhaqanka Soomaaliga haddana miyigii waxaanu u baahanahay wax badan oo naga baasamay inaan dib u baahnaa wax ma qoraysaan oo marka waxaan aad ku hadlaysaan iyo waxaan dadkana diyaarinaysaan ma ka dejinaysaan oo ma ka reebaysaan mise dubitaanka kaliya marka qaarkood waxa soo baxay buug la yiraahdo maqana goob waa saas waa 500 oo bayt waa 500 oo bayt oo boga gabayadayda ma la iska tirin xaraf baa loo macneeyay si dadku fahmaan yar example gabayadayda waxaan ku daraa kelmada ay ma hadda aqoon buuqaya dhowrkii xilliga qiilo bixi waaye qabiluhu qarsiga dhaawici qaaday salaq dhowre qayraanka dahan baa baahina gaaray qaar badan qaylada bulshadu waldareen qoonta garsoon qabiyo unuga ka habowday baan qaale ka idlaan min qaansada wuxuu Salmaan qabac ka siyaaba marun bay dhadaaban qarxin malab qolaysaay qawniiba oo adag haduu luudi ku qarqoro goortu qarac kala samro qawrar laga waayo inuu qori buleysna u dhaqo saabo waxa waa leedin macnay حرف بوغا إن شاء الله بلوغا بيش soo socota buu soo baxaya hadda kulligu waa qoranyahay dabacadii ku jira waa la idin soo faafin doonaa waxa ka heli doontaan af Soomaali aad u fara badan buugiis gabayay Sayd Maxamed Jabuuti ana igu yaadhay markay ummad badan u yaadhay wax macnayo la waayay wax sifeeya ereyga nuxurka ku jira moogtay sababtoo Sayd Maxamed Soomaali oo dhan baa ku jira gabaygiis waxa si ugu badan gobolada bari ceergaabo iyo wixii xagga ka xiga ya laakiin waxa ku jira waqooyi meesha ugu dambaysa markaan tumaatiyay markaan humaajiyay markaan fiisay ya weeye waran buusaa ku yiri isbu ku leeyahay ninka galbeed ninka reer Bereer wuxuu yiri bow humaaji ya humaaji wasaas ka kale wuxuu leeyahay waa tumaatay moogtahay waa toogtay ya waa rideeyay waa ku rideeyay moogtahay ama inaan ku rideeyaan waran wali wax laga hadlo waran kaliya marka luqaddu waxay baantay in la barto oo dhuuxo la fahmo ereygan erey saleedkiisii la raadiyo sidii usul dhalay la doono midna maanta ku sheegaya badin maye luqadda Soomaaliga luqadda adduunka dhan jooga iyada aabbo waa dhashayna sabab maxaa aniga baray ninka luqadiisa markaan daynaha barto maxaan uga badayaa
markaan carab quraan kula tirto maxaan uga qaadaa markaan ingiriiska barto maxaan sidiisa uga hadlaa baan sida hindiya dhadhadha iraaho iyo soo hadhigayo يسوي قرآن دك يسوي قرآن كسر دك قرياش وقف في عن ولي قرياش وقف في عن اللغة الإنجليزية جامعة هاي فاري رجع قرياش أي مقالة وين يوصل محام وإرهبا لبعتني يصدق يا لبعتن والله ثمانية كو يطلب يا كرو الدنيا جوجا هذا أنا أصلا بس أدوكر استعمالها أنا قلنا تويس خلينا تويس يا ما معناه استعمال أنا قلبه إياه لكن الدنيا كانوا وحل أنا جوا فوجان يمج وينان يفوجان وحي عبكو كان عربه كان هلقه هو الوعروية يا هذا وعر ها وعر وما حي waxaad ku sagootinaysoo bulshada horfadhi media ka daawata adigu suurta horfadhi media ma daawata anigu kama baxoba ninka ayana baray halka asaas wallahi haye marka ii sheegeen maxay kula tahay bal horfadhi waxaan kula ballamayaa nin fulaya waa galsi dumcol soo dhacay afarta koona laga hareeray meel uu carramay ma asaas waran saay isagoo meesha ka fog oo ku riday suu halka hore ku dhacay fiiskii goorta nimanka laga adkaaday oo aabi lahaday aabo waranka galabtiisa aan u gilgilay markiis maan dhaw inta soo wala dhawaataa nabadda kama jabin horta idinku hadda meesha ka wadaan inaa ugala dhawaataan mooyaha ka dhicina Soomaali u dhaxaya qofkii dhaliil leh tusaaleeya waliba idinku aan aad ugu fogaanay sababtoo ah isagoo hadda nin soo dilay haddaad tiraa dhiig baa qabtaa adna waa ku dilaya dhaqankaas Soomaalidu baa u tartiibiya kow waxaad u badisaan waxa la yiraahdo wadaneeda ka wacyigeliya dhulka ka wacyigeliya khayrka la haysto ka wacyigeliya wadaneeda inaad uga dhawaataan mooyee ha ka laabanina aad baad noomaadsantay waa afgaan Cabdulqaadir Cabdi Shube waa agaasimaha maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho xarunta ayaan dhex fadhinaa sida wada shaqamaan u jeedaan tiyaatarka ayaan dhex joognaa runtiina waxa uu ka sheekeeyay waxyaalo badan oo dhaqanka Soomaalida qaybta ugu muhiimsan oo ah hoggaanka iyo hooyada oo isku mid noqon ama sida wax u barto abwaanka waxaan rajaynayaa eray bixintiisa